siyaasadeedka wadani ayaa maanta shaaciyay xubnaha ururkooda uga qaybgalaya tartanka doorashooyinka deegaanada ee gobolada Togdheer iyo Saraar kuwaas oo ka kooban 14 xubnood oo ka qaybgalaya tartanka doorashooyinka deegaanada ee gobolka Togdheer iyo 3 xubnood oo ka qaybgalaya tartanka doorashooyinka ee gobolka Saraar xaflad ballaaran oo loo qabtay ku dhawaaqida xubnahan oo ay ka soo qaybgalayaan marti sharaf badan iyo mas'uuliyiinta sare ururka wadani ayaa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka wadani Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro wuxuuna ugu duceeyay xubnaha u tartamaya golaha deegaanada inay noqdaan kuwa guuleysta isla markaana horumar u soo kordhiya bulshada waxaana ka mid ah hadaladiisii dadku waxay rajeynayaan in musharaxiintaas ay noqdaan kuwii isbedelka keenayay kuwii ammaanada lahaa kuwii horumarka iyo himilada shacbigu ku filayso inay fuliyaan ilaahay ka dhigo kuwa waxaa inoo hor yaalla hawl badan hawsha inta kuma dhammaa hawshan hortaada waxa weeye ka muwaadiniin ahaan inaynu ka shaqayno danta guud ee Soomaaliland xubno ka mid ah mas'uuliyiinta sare ururkaasi wadani oo ka hadlay xafladaasi ayaa xusay in xubnahani noqon doonaan kuwa ummadda wax u qabta isla markaana waxay ugu baaqeen dhammaan taageerayaasha ururkooda inay isu taagaan sidii ay guul uga keeni lahaayeen doorashooyinka deegaanka sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha uu soo sharaxay ururka wadani ee ka qaybgalay tartanka doorashooyinka golaha deegaanada ayaa iyaguna tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin inay isku soo taagaan doorashada deegaanada